يو Soomaali waa meesha kaliya shaqo u raadin shaqo ku raas waliba waxa ka siyaa badan arday markuu qalin jibiyo waxa ka farxad badan markuu shaqeeyo taasoo ah mid waali caadi ah laakiin saaxib waxa jira waxyaabo sabab u leh waxyaabaha sabab waxa kamid ah saaxib dalka shaqo la'aan jiro saadarte marka waxa jira hadana ardayda inay maraa wada qaldan hadii aad doonayso inaad shaqo hesho ha aadin wax barasho saas oo soo galin ee raadi goobaha skills loo barto balse hadii aad doonayso inaad noqoto aqoon oo kadib noqdo professor iyo waxa noocaas ah runtii waxa maraysa wadada waxbarashada marka wax bar dakhli oo ku soo galaysa laakiin si waa kala fogeeyno kana degdeg ah kan waayo shirkadaha iyo wax dhan hadda u baahan ninka skills ka yaqaan saa darteed marka saaxib ogow hadii aad doonayso inaad shaqo heshid waxa u baahan tahay inaad skills baratid balse hadii aad doonayso inaad noqoto aqoon waxa u baahan tahay inaad waxbarashada wadadeeda martid saa darteed marka saaxib ha isku khaldi marna waxbarashada iyo skillska waxa dhigi kara marka problemka haysta ardayda waxay walbadaas wada ay isku khaldaan saadata marka waxaan jeclaa saaxib inaan kula wadaago xirfadaha ugu macquulsan isdhihi kara maanta waa fursad intaan kula wadaagan koor saaxib waxaan ka codsanay inaad subscribe ii saartid haddii aad hor u joogto saaxib video wuxuu ka mid yahay ku sharaf inay saaxib kula wadaagay CCTV runtii waa mid ugu weyn u balaaran oo loo baahan yahay hadda waxa u baahan shirkadaha u baahan hay'adaha u baahan dadka dawli shakhsiyaadka dawliga u baahan xarumaha dawladda loo baahan yahay saadarte marka hadii aad bartid xirxirtaankiisa hadii aad bartid si macnaha markaas loo fadhiisto meesha loo shaqaysto runtii labadaba waa ka faa'iideysa waana fursad waana wax had loo baahan yahay saadarte marka dalka marka fiirsid waxa uu muhiimsan laga maarmi karin waxay tahay CCTV dadka hadda ku baraarugeen kaamirooyinka qarsoon waxa aragta badanaa ganacsatada oo isticmaalaan dukaamada dadka marka hadda ku baraarugeen saadarte marka adin waxa u baahan tahay saaxib inaad ka faa'iideystid waxa isdhihi karaan waa fursad CCTV labo xirfadaha designinka runtii waxa isdhihi karaa waa xirfadaha ugu muhiimsan hadda loo baahan yahay waana waxa isdhihi karaa waa mid u mudan had inaad diiradda design-ka ugu macquulsan waxay tahay oo maanta fursad ah loo design-ka iyo design-ka way isla socdaan saa darteed marka hadii aad xirfadaas bartid ogow waxa ugu shaqaysan kartaa meel bay Soomaaliyeed hadii aad ganacsada u sheegtid in ganacsigiisa aad gaarsiinayso dunida ama aad gaarsiinayso u yaraan xataa meelaha Soomaaliyeed degan runtii waxa waal ah inuu ku dhihi doono wasdariil maxay taa qarso ku kacayso ishak saadarte marka alla dhil gari karto si fiican u yaraan 1500 aqaaqirti saadarte marka web design-ka kaliya wuxuu ku xiran aftahnimada saaxib inaad bartid aad ku muhiimsan xirfadaasna aad ku muhiimsan waana fursadda saddexaad ee soo muuqata soo ifabaal baxday saaxib oo hadda zaid loogu baahan yahay oo isbedel ku sameeyay dhalinta shaqo abuur oo noqotay waxay tahay saaxib xirfadda jaliinka dalka ayaa horumaraya shirkadii ayaa horumaraya sidaa darteed marka wax badan ay isbedelaysaa TV ogal hadii shactay waxa nooc isku soo deejireen saaxib warar hadda waxay bilaan saaxib in filmaan soo deeyay saaxib wuxuu u baahan actor saaxib oo jaliin khatar ku ah oo qad ma la gaarsiin karo dunida sidaa darteed marka adigu daawana had waxa taa actor aadan u soo istaago maanta baraadkay jaliinka runtii hubaal jaliinka waa mid ugu muhiimsan loona baahan saaxib hadda in uu kacay kana faa'iideysan fursadan sababtoo ah jaliinka horta hadda fursad badan ka banaan sidaas ayadoo tahay ugu hadhow maxaa ka faa'iideeyay hadhow waxa ka faa'iideysaa jaliinkaasi dakhli ay ku qaadanaysaa koow xayisiinta waxa ku sii qaadanaysaa saaxib dakhli kale saadarte marka wax isdhihi karaa jaliinka waa meesha ugu wanaagsan hadda qof kasta wax ka dhali karo waana meesha ugu fursad badan hadda loo baahan qof kasta dhalinyaro inuu ka faa'iideysto I'm actor you are actor saddex qofka jaliinka wuxuu u baahan yahay saaxib qof wuxuu jil u dhigi karaa saaxib waxa isdhihi karaa waana fursad kale si balaaran oo waliba qof kale ka faa'iideysan kara saaxib hadii hadda aadan jaliin igdiida clip ka horeekan ogow had waxa tahay marka qofka aniga waxa jilo ay edit gareynaa see ku digi kartaa midaas waayo waxa kuugu siinaa dakhli brother waxa lagu siinaa dakhli saa darteed marka waa muhiim inaad bartid editing-ka ama cameraman-ka si markaasi labada dhinac u dishid qofka in actor-ka ah oo ku hortaagan si hor ku sheegay hadii shirkadaha TV-yada ee isbedel sameeyay filmaha jilaan runtii filmaanta oo ogtahay intaas oo qayb ka koobiya qaab wuxuu baxay codka sameynayaan qaar waxay sameynayaan colorka qaar waxay sameynayaan jarjarista intaas oo clip markuu u kala baxay saaxib waxa loo baahan yahay intaas oo shaqaale oo editing ah saadarte marka adiga ay daawanayo waa ka sii faa'iideysan kartaa wali waxa uu haysta saaxib fursad aad u faa'iideysan kartid editing kan xirfadaha hadal jeedinta ama speaker ka taqaanidba xirfadahan runtii hadaa bartid laba dhinac waxa uu bedeli kartaa koow aad iska u shaqaysataa labo bulshada uu shaqeyn kartaa ogowna bulshada waxay ka soo xareynaysaa dakhli aad u balaaran khaasatan saaxib dadka muqdisho ku nool muqdishaabiga qofka runtii waxa hubaal ah inuu meeshan lacag fiican ka dhali karo sababtoo ah muqdisho in badan waxa ka dhacay saaxib xalfado waxa ka dhacay saaxib aroosyo waxa ka dhacay saaxib seminaaro inta waxa loo baahan yahay saaxib xiriiriye intaas mabemba may xiriiri marka waxa loo baahan xiriiri saaxib loo cajisan saaxib kalkacina meeshaas kawaala dadka sidaa darteed marka saaxib hadii aad tahay aftaan oo soo jeedinta diyaarsada saaxib waa ka bariisay kartaa hadii aad xirfadaas la fadhiisay saaxib xirfadaas waa fursad waxa u jeednaa saaxib in fanaaniinta ka faa'iideysanaa voice-kooda macaan adigoo voice-kaaga macaan haysid kabaran alfa fadhiisadana istaag saaxib maanta waa xiriiri kartaa barnaamijyo waaweyn
kana faa'iideyso saaxiib markii business la sharxa waxa la saaxiib ganacsi marka bilaabis wuxuu u baahan tahay environment inaad ka warhaysid ganacsigan environment iska dhaaf dalka ka warhaynay sababtoo ah hadii afrinas waa gooni hadii aad ku shaqaysanayso waa gooni fursadani waayo xirfadan waa xirfad saaxiib Soomaalida gabigeed wada baahan waa dhalinyaro saaxiib dhalinyaro walba maanta madax u cid ka ashana anjeliyo saaxiib leeyahay anjeliyo xaafadda la degantahay xaafadaas inuu tinta ku jirto sakiin ishaan lagu jirto maro wuxuu in bilaayo qofta iska adigu ku imaanaysa adigana uu yaraan waxa uu qaad ka taa waxay tahay $2 bar saadartay markuu meesha waxa dhigi karaa waa faa'iido oo aad balaaran saaxiib waa maanta hal qof $2 bar qaadid oo dibla ahay oo sakiin ishaan ku jiri kan maanta si shaqasto ku tashta ka warbaar bidna ku jirto meequu iib karaa at least $5 haduusan ka badnayn saadartay markuu waxa dhigi karaa xirfadan tibjiraha waa xirfad aad u jaaniska badan xirfadan darawalnimada waa xirfada in badan dhalinyarada ka faa'iideysteen waa xirfad inta badan hadana wali jaanis siila waayo dalku waxa ku soo gadhay saaxiib dhaweey iyo rakaab iyo barnaamijyo noocaas ah wuxuu u baahan saaxiib darawalo markaas darawalo license haysto oo dhameystiran saadartay marka darawalnimo meeshaas waa ka dhaqan kartaa iska waa una kartaa xilbaan waa una kartaa qaab kasta darawalnimada ugu shaqaysan kartaa waxa is dhigi karaa waa fursadaha ka banaan dalkeena Soomaaliya saadartay marka waxa jaanis u hetaa ina fursadaas ka faa'iideysatay intaas waa basic aan jecesbaanta ku wada hadii aad channel ku cusub subscribe ku sharaf hadii aad hore joogtayna wuxuu ka mid ah video ku sharaf